بسم الله الرحمن الرحيم. سيادة قفايد سنكرتها سنة كعصوب لما كن أفري لاتن waxay noo bilaabmay sanadka cusub ee 2024 waxaa muhiim ah inaad sanadkan bilowgiisa isweydiisid maxaad doonaysaa inaad kaga faa'iidaystid. waa muhiim inaad xisaabisid oo aad isweydiisid sanadkan cusub ee 2024 maxaad doonaysaa inaad gaadhid, halkeese doonaysaa nolosha inaad sanadka taariikhda ka galo, waayo sanadba sanadka ka dambaysa ee qabrigii iyo qeybiyahood dhawaanaysaa. waxaa muhiim ah markaa inaad isweydiisid sanad kasta taariikhda halka uu kaga jiro. beri ka maalin marka aad weynato da gaadho waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso sanadaha badan sanad kasta taariikhdaada iyo taariikhda dunida iyo mustaqbalka baal gaara ama meel gaara ayuu ka galayaa. marka meeshii uu ka galay inaad sanad kasta qorshayso waa muhiim. marka maadaama sanadku bilow yahay waxaan jecelahay dhowr qodob oo muhiim ah inaan idinla wadaago anigoo rabo markaa qof kasta sidii uga faa'iideysan lahaa inuu falowgeeda galo. qodobka koowaad sanadka waxaad kaga faa'iideysanaysaa horta inaad yeelatid qorshe oo aad xisaabisid adigoo markaa isweydiinaya waa sanadkan maxaa doonaysaa inaad qabato, sanadkan maxaa kuu daran. markaad doonaysa inaad qorshe samaysato waxaad isweydiinaysaa maxaa kuu daran, maxaa tabaysaa. waxyaabaha aad tabaysa aad doonaysa inaad gaadho waxyaabahaas leedahay nolosha way kaa dhiban yihiin. qodobka labaad waxaad isku daydaa inaad xirfad cusub baratid ama mid hore oo aad taqaaneed horumar kusii samaysid. waa jira xirfado badan oo qofku ku shaqaysan karo, qofku hobbi u leeyahay. markaa kuwa inaad isku dayda inaad baratid kuwa cusub ama kuwa hore oo sii jira inaad isku dayda inaad horumar fiican aad kasii gaadhid. qodobka saddexaad waxaad isku dayda inaad sii kordhisid oo ilaahay subxaana watacaala cibaadadiisa iyo xaggiisa aad u badatid. waa dunida waa laga socdaa, cimrigaagana wuu sii socdaa. marka xagga ilaahay inaad u socotid oo cibaadadii iyo waxyaabihii khayrkii aad wanaajisad iyadna waa muhiim. qodobka afraad waxaa isku daydaa inaad dad cusub baratid, dad cusub oo noloshaada wax kusoo kordhinayo oo faa'iido leh. sidoo kale waxaa isku daydaa inaad meesha ka saartid dad badan oo aan faa'iido ku lahayn, noloshaadana khasaare mooyee wax faa'iida ku lahayn, iyagana isku day markaa inaad noloshaadii aad ka saartid. qodobka ku xiga isku day inaad su-aalo weydiisid. su-aalahaas waxay noqon karaan maxaan rabaa inaan qabto sanadkan 2024, maxaan doonayaa inay hirgalaan, maxaan rabaa, maxaan isleeyahay oo inay weydiisid, iyagana waa mid muhiim ah. qodobka ku xiga caqabadaha jira ee mataqaanaa markasta ku imanaya iyaga laftooda la tacaal. isku day caqabadahaas inaad mataqaanaa la tacaashid oo sidaad uga guuleysan lahayd iyo horumar ku gaari lahayd aad markaa falowgeeda gashid. caqabadooda noloshay ka mid yihiin, markastana way jirayaan, lama baabiin karo, laakiin waa lala tacaali karaa. marka caqabadaha lala tacaal, sanadkana waxaad isweydiisaa wixii aad kaga faa'iideysan lahayd wuxuu doona marka ha ahaaday.